meeshaan doonaba aan joogno ayatullah ugaas mustafa ayaa noo taliya ugaas mustafa amarkiisa iyo taladiisa ayaa anagu ku soconnaa ahay wuxuu ugaasku noogu talayo halkaa noo saaran tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالي قيمها iyo qadarinta badan meel ka soo daafahad in aad joogtiin waqtiyada kala duwan ee aad ku kala sugantiin aad baan salaamay habeen raar subax duhur waqtiga oo tahay wanaagsan waxaan rabaa haduu ilaahay yiraahdo laba kelmadood inaan iraahdo kelmad waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa dawladda Soomaaliland ayaan leeyahay kelmadda waxaan leeyahay ummadda walaalaha ayaan leeyahay haduu ilaahay yiraahdo Soomaaliland waa dal ka madax bannaan inkastoo una haysan caalami una haysan laakiin haddana ka madax bannaan dawladda Soomaaliya oo ciidan leh wadanihiisa maamulka haday tahay ummadiisaba isaga u madax bannaan iyada ayaan talisa iyada ayaana ammaanka ummadaas ku nool intii lagu leeyahay goornay Soomaaliland marka laga reebo inta hadda ka baxday Soomaaliland mar haddii ay dawlad tahay ama maamul ay tahay waxaa ku hoos nool dad badan oo kala duwan oo kala jaajaada oo kala fikir ah oo kala aragti ah waxaa loo baahan yahay intaasi in iyadu ay isku wado oo isku maamusho oo isku maarayso loo baahan yahay in ay intaba iyadu ay danahooga iyo arrimahooga ay qola kastaba hoos u eegto maalmahan waan ka warqabnaa waxyaabaha socda ee haday tahay media iyo haday tahay idaacadahaba kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale waxaan leeyahay xukuumadda ha ku hadlina ama dadka ha u kala raacina haddii aad kala raacdiin sida hadda aan ku hayno warka wasiir Sandheere oo maalintii dhaweyd uu kaga dhawaaqay magaalada Usayla wuxuu tagay magaaladii oo nabada la wada joogo la wada tukanayo la wada cunayo wax la isku yahay haddana waa la isku yahay halkaas ayuu kaga dhawaaqay inuu yiraahdo shirkii loo ballansanaa ee dawladda Soomaaliland ay ku ballan qaaday ee odayaasha gandaha beesha ciise intay darraba ay ka yimaadeen iyo kuwii guban joogay halka ay iskugu tageen madaxweynaha ay hordhigeen ay yiraahdeen arrintaaba wadanaa arrin siyaasadeed maahin waa arrin dhaqameed adiguna waxaan rabnaa inaad qaybtaada aad ka qaadatid oo qaybta adiga kaaga aadan ee ammaanka ah inaad ka qaadatid okay wala isla qaatay waxa la yiri hawshaas anaka qaybteeda ka qaadanayna ee waxaan iskugu noqon doonaa maxaa la yiraahdaa ballantaasi maadaama ay degdeg tahay dib hana loogu dhigo oo 5 bisha hana looga dhigo bisha soo socota yani waqtigaas 20 maalmood ayaa dib loo dhigay waqtigii loo ballansanaa markii hore ballantaana waxaa soo qabtay sida aan warka aan ku hayno dawladda Soomaaliland ayaa soo qabatay madaxweynaha iyo wasiirka Cabdulla Sandheere ayaa soo qabtay kaymo waa soo baxay wuxuu yimid gobolka Sayla buu yimid halkaas ayuu ka shaaciyay una shaaciyay waxyaabo xaqiiqatan ummadda ay iskaga hor imanayaan ayuu halkaas kaga dhawaaqay oo ka shaaciyay wuxuu yiri xafladaas horta buug xeer Ciise oo la wado oo qof qoray lama wado oo meel lama keenin laakiin waxa xafladii ay UNESCO aqoonsatay sanad guuraheegi weyn Djibouti waa lagu soo qabtay Gardamana waa lagu soo qabtay markaas Soomaaliland ama Saylaana waa halkii aakhirka ahayd والله لا شكرا والله magarasa Soomaaliland waa halkii uu xeerkani uu ka soo ulkumay oo dadkii xaq u lahaa markii horeba inay iyagu xusaan ama Sayla bilowgiiba ama Soomaaliland lagu qabto sidee doontaba ha ahaato arrinkii
qabiya qaybo kale ama maxaa la hab kala duwan ayaa looga falceliyay oo dad badan ayaa uga falceliyay sida doonta ba aato dadkaasi waxay u badnaayeen dadka inta u badan dadka media ka qayliyoon bay u badnaayeen ee dadkii maxaa la yiraahdaa wax garadkii aqoonyahankii ma sida doonta ba aato Sandheere halkaas wuxuu ka sheegay waxaan u joojinay buudi heerkaasi ama xafladaasi waxay lid ku tahay jiritaanka Somaliland ama se arrimo nabadgelyo darteed ayaa la joojin okay warka maanta ka soo baxay marka uu cirra uu tagay nakii uu ka duwan yahay wuxuu yiri gobolkii aan ka imiday waa nabad waa nabad weeyaan laakiin markii aad ku dhawaaqday wixii ka dhacay iyo falcalintii meesha ka dhacday adiguna waad ogtahay ummadda Soomaaliyeedna dhammaantood way ogtahay dadkii halka wada deganaa ee walaalaha ahaa ee wiili abtiga ahaa ee Ilaahay halka ku wada ulkumay ee halkaasi wuxuu Ilaahay ku siiyay ku wada cunayay na dab ayaa dhaxdhigtay mas'uuliyad ama siyaasad ama maxaa la ilaahay xilkasnimo oday mas'uul ana uma soo dhaqmine waxaad soo dhaqantay gaashaanbuur oo kale ama qof maxaa la yiraahdaa fikir siyaasad kale wada xaqiiqatan marka uu wasiirku uu hadlayay warqad akhrinay horta warqad waxa xaqiijiyay inuu Hargeysa kala yimid ama se uu la yimid inta uu gobolka Sale joogay uu qorinay kursigu sida uu gariiray qodobada markuu akhrinayay kursiga uu ku hadhayo isagu uu gariiray wasiirka kulli wax ka gariirsinay aanu ma garanayo marka waxaan leeyahay Somaliland dadkan adiga ayay kugu hoos nool yihiin adiga ayaa maamulkaaga ay ku hoos jiraan adiga ay mas'uuliyad leh dadka la isku madilo waa la kala dhabaa waa la kala ilaaliyaa ta kale cid kastiba waxa ay wadatan waa lagu ixtiraamaa waxani waa dhaqan hadduu yahayna siyaasad shaqo kuma leh ninba meeshuu doonuu la tagayaa marka ay siyaasad tahay laakiin waxani waa dhaqankana dad ayaa iskale dad ayaa samaystay xeerka dad baa qortay dadkii ayaa maxaa la yiraahdaa maanta iska kama dhigno in maxaa la yiraahdaa la siyaasadayo mar hadduu dhaqan yahay oo siyaasad yahay meel cid kastiba meesha ay degan tahay iyo dhaqankeega lama farageliyo marka maanta hadalkaas iyo qayladaas taagan iyaga ka dambeeya baan leenahay marka iyaga ayaa ka dambeeya inay qayladu ilaa halkaa marto sidee doonta ba haato ta kale waxaan leeyahay ummadda xeerkan iyo dhaqankan wadata ee Ilaahay iyaga u siiyay ama samaystay waxaan leeyahay horta kow aan iska ilaalino wixii dulmi ah iyo xadgudub ah inaan cidna dulmin cidna inaan ku xadgudbin taasi waa mid inaan xeerkeena aanu qabsano iyo dhaqankeena sidii awalba aanu qaban jirnay ee ugu dhaqmi jirnay ee ugu dhaqanno ee u qabsan jirnay ee Djibouti loogu qabtay ee Darraba loogu qabtay baa loo qabay xafladuna sideeda waxay laba cisho saddex cisho intaas kama badnaato ilaa magaaladii lama bararayo oo lama geenayo meel kale lama geenayo dad hadda la soo wado oo maxaa la yiraahdaa lagu abuuray ma jirto waa xaflad marka dadka in la isku dilo oo la siyaasadayo ma waxaan leeyahay xeerka dhammaan cid kasti ha ka soo qayb gasho cid kasti ha ka soo qayb qof kasti oo awooda ama jooga Djibouti ama jooga Ethiopia ama jooga Guban dhammaan inay ka soo wada qayb galaan wala yimaado aad bay muhiim u tahay waa sharaftiina ta kale wixii ka soo baxay shirka maanta ay shaca labada maalmood loo fadhiyay halka uu saaray madaxa ayuu noo saaray yahay anaka waxa noo taliya ka amar qaadanaa meeshaan doonaba aan joogno ayatullah ugaas Mustafa ayaa noo taliya ugaas Mustafa amarkiisa iyo taladiisa ayaa anu ku soconaa
أهي wuxuu ugaasku noogu talayo halkaa noo saaran tahay maanta soo laguma dhawaaqin oo lama odhanin ballantu waa sidii waxbay iskama bedelin saacad dib looma dhigayo shirka arrinta maantana tii unbaa lasii xoojiyey soo maha soo sidaa maynha halkaa noo saaran tahay caawa haddii uu soo hadlo hadda waa caawa haddii uu hadlo yidhaahdo waa laga noqday shirkii dib baa loo dhigay ama waa la joojiyey madaxuu noo saaran tahay maxaa yeelay maamul iyo kala dambayn iyo is-ixtiraam iyo xeer baan leenahay marka xeerkuna wuxuu dhigayaa inaan la isku ixtiraamo ama ummadda ka noo haya naga ugaaska ayaan talada uga dambaynaa isaga hadduu yidhaahdo waa la joojiyey oo kama hadlayno haddii la yidhaha waa la samayn marka waxaan leeyahay cidda siyaasiyiinaysa ee siyaasadda gelinaysa ee ummadda isku dilaysa ha laga daayo waxan waa dhaqan weeyaan buuq maahayn waa dhaqan waa xafladdii UNESCO sanad guuraheygii weeyaan walaha dadku ma maqlayaan waxaan aan sheegayno war waxaana buuq lama wado buuq maahayn waa xaflad waa fantasiyo waa dabaaldeg waa sanad guurihii UNESCO markay aqoonsatay sanad guurihii koowaad weeyaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan walaalaha wiil iyo abti iyo inaabti iyo dubri iyo gacan iyo xigaalo intaba isku ah xeerkan innakaalee aan wada qurxisano xafladda innakaalee aan ka wada shaqayno nin aanan kuu rari doonin aan kuu furi doonin yoona kuu rari soo maahay imika maalintii dhaweyd ee wasiirka uu ku dhawaaqay uu yidhi maxaa la yidhaahdaa ii sheeg xafladdii waan joojinay wixii ka dhacay waad wada ogteen oo dhammaantiin waad ka warqabteen waxaa ka dhacay waddooyinkii in la xiro waddadii Jabuuti ee loo yacday ilaa iyo Buurama isku xidhaysay ilaa Hargeysa isku xidhaysay soo lama xidhay okay dadkii miidiyaha ka qayliyey iyagu maxay ka faa'iideen iyagu waxba kama faa'iidayaan waxay ka faa'iideynayaan dadkaasi inay gaasheeyaan oo dhibaateeyaan dad waxaa jira baabuur ku xamaasha dad waxaa jira maxaa la yidhaahdaa isku socdaa jira oo halkan ehelkoo degan yahay halkan ehelkoo degan yahay dad waxaa jira halkan ka soo qaada alaab oo xaggan ku iibiyo kuwa waxaa jira halkan ka soo qaada xaggan ku iibiyo oo saa isku dhex socdo sidaas xididadaasi iyo dhiiggaas ay u dhex socdaan jirkayga iyo ummaddaasi sidaabay tahay ilaahay baana saa ka dhigay wayna sii ahaan doontaa marka alfitnatu ashaddu min alqatl fitnadu dilka way ka weyn tahay ka adag tahay marka fitnada ummadda ha laga daayo waxaa jira saa la sheegay gaadhiyaa la jebiyey waddooyinkii baa la xidhay xataa wasiirkii baa ku baxaya hayaay buu ku baxalayay ceelgaal ayaa loo joogsaday waddadii wax xaggan iyo xaggan xataa maantadaas wax gaadhi oo xaggan iyo xaggaa u socda ma jirto waxaana waxaa gaarsiiyey oo wasiirkii dhulka oo nabada yimiday dhulkii oo maxaa la yidhahdaa intuu olaad dhex dhigay haddana ka tegay markaa dadkan maskaxdoodu iyo aqligu ha shaqeeyo dadkan waa dad walaal ah iyaga dan ah iyaga isku dan ah marka maadaama isku dan aad tihiin waxaa miidiyaha ka socda iyo beentan iyo bugtan inayna ininka ini saameyn xafladdaana ininkaa wada leh xeerkaana ininkaa leh taasna le waxaan dhegaystay maanta nin wasiir maxaa la yidhahdaa wasiirkii dowladdii Soomaaliya hore ahna madaxweynaha Siyaad Barre u naxariistay dhakhtarkiisii Dr. Gaboose inay ahayd baan jeclay haddana qaldamin hadallo wanaagsan ayuu xaqiiqatan ka dhawaajiyey aaway dadkii caqliga iyo cilmiga iyo waxgaradka ah
hadda maxuu heli lahay oo idaacadii waaweynaa ee Somaliland hadda maxay uga hadli lahayd ummadda in la isku dila maahane war ummadda masiirkooga iyo jiritaankooga iyo wada noolaashahooga iyo wada jirkooga in la siyaasaday intaa baan ilaahay aad baan inii salaamay waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh